Nabadoono odayaal iyo waxgarad warbaahinta maanta kula hadlay Beledweyne ayaa gudoomiyaha degmada Feerfeer Cabdirashiid Ibraahim Dhaqane ku eedeeyay inuu ka dambeeyay dagaal geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo shalay dad beeraley ah ku dhaxmaray beero ku yaala deegaanka Aabaaley ee waqooyiga Beledweyne. ciidamo hab qabiil u abaabulan oo gudoomiyaha Feerfeer uu soo diray ayay sheegeen in dagaalkii shalay ay bilaabeen ayna hayaan xog sheegaysa in gudoomiyihii deegaanka Aabaaley oo shalay dagaalka hogaaminaya dagaalka uu ku geeriyooday sida odayaasha ay warka u dhigeen. Nabadoonada odayaasha iyo waxgaradka ayaa madaxda dowlad deegaanka Soomaalida, dowladda federaalka Itoobiya, dowlad goboleedka Hirshabelle iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya intaba waxay si isku mid ah ugu baaqeen in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinka dadka beeraleyda ah lagu hayo ee ka jira deegaano dhaca xuduudka gobolka Hiiraan iyo ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya iyo gudaha ismaamulka Soomaalida deegaano kamid ah oo ay sheegeen in uu ka dambeeyo gudoomiyaha degmada Feerfeer. Gabagabadii odayaasha iyo waxgaradka ayaa ugu baaqay dadka beeraleyda ah ee colaadooda ay halka ka soo cusboonaatay in wax walba miiska wada hadalka ay ku dhameeyaan. meeshan waxa fadhiyo odayaashii dhaqanka ee beesha Xawaadle sida la ogyahay ama Soomaaliya u taqaana Xawaadle xuduudihiisa iyo dhulkiisa iyo ballarkiisa wuxuu la egyahay waa la yaqaan. weli ma dhicin Xawaadle inta duulo beel ku duulo laakiin mar kasta asaga lagu soo duulaa. haddii lagu soo duulo waxaan xodogaal u nahay xataa inuu isdifaacin. halkan hadda dhibka meesha uu ka dhacayo sitmaan gudihiisa 10 nin oo Xawaadle lagu dilay kama jawaabin Xawaadle inuu ka jawaano kuma talagelin. waxa lagu dilayna waa dhulkiisa iyo deegaankiisa. Soomaalida waxa iska darsan marka Itoobiya dowladda Itoobiya anaga xuduudan leenahay Soomaaliya iyo Itoobiya xuduud ay leedahay. shakhsi Xawaadle inta baxa Itoobiya ku duulay wali lama sheegin mana la sheegi doono. waxa lagu soo weeraray waa Soomaaliya waa nimanka ku soo weeraray waxay degan yihiin Feerfeer waxay ka tirsan yihiin maamulka Feerfeer. hadda waxa daliil u ah gudoomiyaha Feerfeer dadku soo diray iyo ciidamada uu soo diray gudoomiyaha Aabaaley oo ciidanka soo weeraray beesha Xawaadle oo beeraleyda ayaa ku dhintay waxaana ka dambeeyay gudoomiyaha Feerfeer. waxaan rabnaa marka annagu ma rabno wax been inaan meediya ka sheegno qabiil weyn oo jiro adduunyada laga yaqaanaanahay nalna ku baran maayo mataqaanaa inaan dad ku duulno ama aan dad dhacno ama aan dad been ka sheegno. halkan waxa ka hadlay niman u dhashay beeshaas u dhashay oo xildhibaano Hirshabelle waxay ka hadleen wax been oo aan jirin oo khayaali ay ka hadleen. waxaan u sheegaynaa maamulka Hirshabelle haddii nin xildhibaan oo Hirshabelle ka tirsan oo waxaan arkay idaacadaha ka sheegay Hirshabelle waa inay jawaab ka bixida sida ugu dhaqsaha badan waa inay jawaab ka bixida. hadday ka bixi waaysan annaga jawaab ka bixinayno. inta markaan ka gudbo degmada Feerfeer waa Itoobiya waa dowlad deegaanka Itoobiya. meesha laga soo hubeeyo oo looga soo duulo oo dadka laga dhibaateen waa degmada Feerfeer waa gudoomiyaha Feerfeer. anagu Feerfeer aan degannahay 6 qabalay aan ku leenahay. qabalaydaas Xawaadle intuu soo duulo Feerfeer kuma soo duulo mustaxiil kuma duulo burdeenle kuma duulo burukul kuma duulo. halkaas dhibaatada ka jirta dowladda federaalka ee Itoobiya waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha Feerfeer haddii aysan jawaab wax ka degdeg ayna ka qaban halkaas gacanta la isugu tagi doonaa. maamulka degmada Beledweyne u sheegaynaa kan Hirshabelle u sheegaynaa dowladda federaalka Soomaaliya u sheegaynaa been abuurka maalin kasta Feerfeer laga soo diray oo gacmaha laga laabay ka laabamayno runta idin sheegna ma ka laabanayno mana yeelayno mana u dulqaadan doono. waa shakhsi dowladda soo magacaabay. meeshaan waxa isugu mid waxgaradka odayaasha beesha Xawaadle ujeedkooda iyo muhiimkoodana waxa waaye wax macnaha aan jiro iyo waxaan jirin oo wax ka abuurnayn inay kala saaraan. موقفكان وعوا أرين كان عند حدود الصومالية iyo Itoobiya oo u kala qaybsan Aabaaley iyo Feerfeer. annaga dad ma dulmino dad ma xumayno diris ma xumayno wili yaro beeree agafley xamaalate ayaa waxa soo weeray tuulada Aabaaley oo ah waa Soomaaliya
Soomaaliya ayadu ay tahay haddana la hoosgeed degmada Feerfeer oo Itoobiya waxa ku dhintay gudoomiyihii tuulada Aabaaley waxa la dirinaana waa beeraaley aan ahayn qabiil erayga la yiri xawaadle lagu soo duulay xawaadle marnaba laga ma yaabo nin yar oo ku agnool ama la dirisa ama ba aan ku tixgelin wadaad culumanimo oo asugu shaar kala hadda qaato meel ka soo gashadaba marnaba xawaadle isku qaawamay eraygaas horta gafiye gardarra u aragna waa qodobka labaad way duuleen waxay ku duuleen shacabka Itoobiya deganaa xawaadle waxay ka soo afduubteen tuulada la yiraahdo la hela ayay wili abis ka soo afduubteen garsaasha mataana waxay ku dileen gurigoodii markay ka bixiyeen ay ku dhufteen 5 xabadood meedkoodii hadda meesha laga soo qaadaya dawladda Itoobiya waa calam Itoobiya waa dawlad dib kama jirin haday og tahay waxa ka qabata hadayna ogeysiin hadayna ogeyn waxa uu sheegaynaa in ogaato waxa sii soo haray Feerfeer dadkii deganaay oo beesh xawaadlo ku abtirsaday guriyoodii waa la gubay waana la soo barakacshay waxa ka dambeeya falkaas oo dhan waa gudoomiyaha Feerfeer ayaa ka dambeeya oo Itoobiya iyo Soomaaliya xuduud kala labadiiba qabiilnimo ugu shaqeynay mas'uuliyadnimo muddo 2 sano ah ayaa dawlad deegaanka dadku magac sheeganayo maleesiyada degmada Feerfeer ah ayay waxay soo weerarayeen xuduudka Soomaaliya ay la leedahay Itoobiya waxa og ciidamada dawlad deegaanka Itoobiya ee New Police og waxa og ciidamada Itoobiya marqaati aan uga dhignay way dhaxgaleen way hadleen waxa dhacdooyinku ka dhaxdhacaayeen waxa waaye laba tuulo oo beeraleeya oo isu dhow oo darisa wax qabiil la yiraa ma weerarin labada tuulo ayaa isku dhaceysay maalin walbana weerarka ayaga soo qaadayay waxana soo dirayay gudoomiyaha degmada Feerfeer waa la og yahay waa caan waa u tagnay waxaan war waxaan jooji wuxuu ku abtirsadaa beesha reerow xasan beesha reerow xasanna Itoobiyana meel yar ka degtay Soomaaliyana meel yar ka degantaa mana rabno inaan beesh sheegno marka waxa laga kari waayay nabad qaado war dadka nabad kula noolaaw dadka Itoobiyana ha xaqirin dadka Soomaaliyana ha xaqirin ayaa laga kari waayay waxaan maanta u jeedaynaa beesha caalamka iyo adduunka iyo dawlad deegaanka dawladda federaalka Itoobiya iyo dawladda deegaanka Itoobiya iyo ciidamada Itoobiya calanka Itoobiya hoostiisa shalay waxa lagu gubaayay beel xawaadle la yiraa Feerfeer wax ka degan burukurna wax ka degan guryahooda hal gubo aqaacu ka kacay waxay u taalaa dawladda Itoobiya ay u taalaa annagu kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa midda Soomaaliya nimankaas dulmiga iyo gardarrada ay soo qaadeen waa 7 jeer weerar ah 5 inay dileen 3 ay dileen 2 ay dileen maalin dhawaad ay soo weerareen 5 baasuuka ku soo weerareen ay dileen hadday shalay soo weerareen waxay weerarayaan waa tuulo daris la ah oo beera ay isku ag leeyihiin tuulada abxalle dadka weerara waa dadkee waa maleesiyadii degmada Feerfeer oo ninkaas uu soo diray gudoomiyaha marka koowaad waxaan leeyahay inna lillaah wa inna ilayhi raaji'uun waxa ka tacsiyeynaya shacabka dulmiga la soo abaabulay ku dhintay ama gudaha Itoobiya ha noqoto ama gudaha Soomaaliya ha noqoto dhamaantood waa shacbi Soomaaliyeed oo dulmi la soo abaabulay ku dhintay waxaan rabaa marka maanta halkaan inaan ka cadeeyo 3 qodob kaliya marka koowaad waxaan rabaa tuulada la yiraahdo Aabaaley ma Soomaaliya ma soo Itoobiya haday Itoobiya tahay ciidamada booliiska Itoobiya maxay u dagilaayeen ciidamada yaha dhigta Itoobiya maxay u dagilaayeen haday Soomaaliya tahay waa in la dajiyo ciidan booliis oo Soomaali ah calanka Soomaaliya laga taago iyaguna ay ogolaadaan inay Soomaali yihiin tan labaad dagaalka shalay dhacay waxa soo abaabulay gudoomiyaha degmada Feerfeer ama waradaha degmada Feerfeer ayaa soo abaabulay wuxuu ula jeeday inuu colaad baaxsan oo culus dhax dhigo dawladaha walaalaha ee Itoobiya iyo Soomaaliya
khaasatan labada maamul kilinka shanaad iyo dowladdan Hirshabeelle inuu dhex dhigo colaad baahdo ayuu ula jeeday waxaan u celinayaa mahad ciidanka booliiska ee dowlad deegaanka Itoobiya iyo ciidamada yahanigta Itoobiya oo iyagu midna aan ka qayb qaadan dhibaatadaas waranuhu u abuuraayo waxaan rabaa marka inaan baaq uga diro ninka xukumo goday ma og yahay dhibaatada ninkaani uu wado inuu xumeynayo xiriirka u dhaxeeya labada dowladood ee federaalka ma og yahay inuu xumeynayo xiriirka u dhaxeeya labada maamul ee labadan dowladood ma og yahay waxa la wixii khasaare halka ka dhacay isaga dushiisa waaye waxa la wixii ku dhintay isaga laga miisayaa waxa la wixii ka waxeebay isaga laga qaadayaa dowladda Itoobiya waxa si naxariis looga codsanaya inay u soo dirto maxkamad military oo baarta kiiska waradahaasi geystay si ummadda deegaanka ay u qancaan ee raallina ugu noqdaan tan labaad dadka meelaha ka qaylinaya uu ka mid yahay ninka xildhibaanka waxaan leeyahay ninka xildhibaanka wuxuu galay khiyaano qaran saacada laga bilaabana waxa saanadu sida malaha waana in lagu qaado maxkamad military asagana lana soo taago maxkamadda militariga waa nin u bareeray dhiigga shacabka inuu banaysto waa nin u bareeray inuu ummadda isku diro waa nin u bareeray inuu ummadda iska horkeeno sidaas aawadeed waxaan leeyahay labada maamul ee meesha ka jiro ma wada shaqayn karaan ilaa inta waradaha meesha joogo maxkamad la keenayo oo cadaalad la marsiinayo maanta oo taariikhdu tahay 17 bishii 6 2020 shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay tacsi aan uga tacsiyeynayno dadkii shalayto iyo xalay lagu laayay gudaha Itoobiya iyo gudaha Soomaaliya oo ka tacsiyeynayno una sheegayno dawladda Soomaaliya iyo dawladda federaalka Itoobiya iyo maamulka Hirshabeelle iyo maamulka Soomaalida ee gelinka shanaad dibta meeshaas ka dhacday meeshu ka imaanayo dulucdeeda awalan waxaan leeyahay inna wa inna ilayhi raaji'uun dadka dhintay jaha walba ka dhintaan oo dad Soomaaliyeed waa ka tacsiyeynayna dadkii ka dhinteen sabr iyo iimaan jamiil Allah ka siiyo fidnada inta wadana ilaahay ha soo qabto waana mana deyn doono waxaan rabnaa Itoobiya waa dawlad deriskeena ah oo walaalo ah aan walaalnahay gudaha Itoobiya dad maamulkaasan ka tirsanahay laha maalin walba dad ku laay oo feerfeer ka imaanaya maamulka Itoobiya aanu sheegnay dawladda Itoobiya aanu sheegnay waxaan rabnaa Soomaaliya gudaheeda wixii ka dhacana inay dawladda Soomaaliya kula xisaabtanto dadka ka ridaya maamulka Hirshabeellana uu kula xisaabtamo gudaha Itoobiya wixii ka dhacana dawladda Itoobiya iyo maamulka gelinka shanaad inay kula xisaabtamaan waxaad ogtihiin annagu waxaan nahay odayaasha dhaqanka ee beesha xawaadle wiligeen meelna kuma naan duulin diyaarna uma nihin dad walaalaheen oo nala degan in xoog dhameysano laakiin dadka fidnada wada oo dadka isku diraya in la qabtaan soo jeedinayna shalayto wiilal yar yar oo cagafleeyo beer falanaya oo biyo baxadi markii ka baxday beerihii falanaya la soo weeraray gudaha Soomaaliya lagu soo weeraray xalayna gudaha Itoobiya ayaa lagu soo weeraray haddana qaar kale oo beeshaas ku abtirsada feerfeer meesha la yiraahdo guryihii baa la gubay oo la yiriyaa iska leh guri hebel ree hebelaale xawaadlaale waa barakicin iyo isku dir la isku diray labada maamul ama xiriirka la xumaynayo Itoobiya iyo Soomaaliya waxaan u sheegaynaa gelinka shanaad iyo maamulka Hirshabeelle inay il dheer u yeeshaan ninkaas feerfeer jooga gudoomiyaha ka ah dibta oo wado dawladda federaalkana waa ka codsanayna inay soo farageliso dawladda Itoobiya inay soo farageliso waxaan ognahay shakhsi Itoobiya gudaheeda wax ku sameeyay inuu saacad joogi karin dadkaas in la soo qabto oo la maxkamadeeyo oo arintaas la baaro oo labada dhinac iyagu iska kaashanaya ay baaraan haday saas ku sii socoto waxa laga yaabaa fidnadu inay fakato ay faraha ka baxdo waxaan ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad hadalkii ku soo koobaya in arintaas si degdeg wax looga qabto dawladda federaalka iyo dawladda Itoobiya iyo labada maamulba Maxamed Ibrahim Siyaad
telefishinka caalamiga Hiiraan Bile beledweyne.